عليه وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة سديدات وحلقة إيادنا تضونا وحكتي ريب بني إسرائيل ويلكو جرنا ريب بني إسرائيل طبعا وحيالا بدنا إله أكتر بييني كوي هوري ولا ربي إني أوفيان لكن أيها سيدي لربي وما إسان قادن سيدي القرآن كإن بدن وكاقهر لي waxyaalaha muhiimka ah waxa waaye oo la raba in dadka laga tarbiyeeyo umadahana ma aragtay ay ku hormaraan waxa kamid ah inaan isku qasin waxa xaqa iyo shayga baatilka inaan madax la isku gelinin in maxaa la yiraahdaa shayga wanaagsan oo qiimaha badan iyo shayga xun inaan madax la isku gelinin tafkiirka fiican iyo tafkiirka xun inaan madax la isu gelinin wixii xaq ana xaqnimadooda la siiyo wixii baatil ah baatilnimadooda lagu baabi'iyo meeshaas marka laga hadlaayo marka waxa waaye waxyaalaha ugu muhiimsan oo laga rabo maxaa la yiraahdaa ummadaha laga rabo waxa waaye kow haddii xaq la cadeeyo maalan oo baatilka laga sooco oo ilaahay dartiisa loo sameeyo xaqa aan la qarinin waxa waaye waxyaalaha ka dhalana qiimaha badan waxa kamid ah insaafki cadaaladda iyo horta la hela adliga ummadaha waxyaalaha baabi waxa kamid ah cadaalad darada kamid ah waxa kamid ah dadka insaaf in loo sameeyo kamid ah haddii laakiin xaqi iyo baatilka la isku daro waxyaalaha ka dhalana waxa kamid ah insaafkaas cadaaladaas ka bixmeesh marka qodobkaas waa waxyaalaha reer bani Israa'iil ay ku baabeen ku gacan galeen kamid ah quraankana markaas uu ka tarbiyeyna wuxuu dhahay wala talbasu al-haqqa bil baatil wa taktumu al-haqqa wa antum ta'lamun mushkilada kale oo jirta waxa waaye qofka asagoo wixii yaqaan oo sameeyna hadana macnaheedu taas waxay ka dhigan tahay in uu ku madax tiiriyay baatilkii baatilkii qofkii ku madax tiirina iyo ku adkaysana taasna marka waxa waaye qofkii inuu soo laabto yaan rajo laga yeelanaynin qodobkaas isna waxyaalaha la iska tarbiyay waxa kamid ah hadii wixii madax la isu geliyo oo la qarbala lagu sameyn waayo waxa dhacaysa in la kala shaqshaqi waayo wixii saxiix ah iyo wixii aan saxiix ahayn in la kala shaqshaqi waayo oo wixii oo dhan is dhaxyaacaan hadii mar wixii is dhaxyaacaan ummadaasi waa ku diisay ummad ama shakhsi ma ahan shakhsi oo horumar sameyn kara ma ahan shakhsi ummad tarbiyeyn kara ma ahan ummad socon karta ma ahan kaas marka qodobkaas marka waa qodob noocaas waaye oo laga maarmaan ah ummadaha in ay aad ugu tarbiyoowaan inaan wixii la kala isku qasin marka barkeeda waxa dhacaysa qofkii wixiisa waxa dhici karta waxa jiraan mesela meelo dadka lagu kala bixiyo sida maxaakimta oo kale mesela waxa kamid maxaa la yiraahdaa hatta caalamiyan yani bulshadka laftigooda marka hadii wixii la kala sooci waayo madax la isu geliyo waxa way hadhowdii waxa dhici doona fasaad aad u weyn dhici doona waxa dhici doona wax laga shalaayo yaa dhici doona saas awgeeda marka reer bani Israa'iil waxyaalaha ilaahay uu sheegay subhanahu wa ta'ala oo ayagana ay sameynayeen oo madax isu gelinayeen waxa kamid ahay xaqi iyo baatilka inay isku daraan lihada iyo xaqina ay qariyaan qarinta meesha ka iimaanaysa markaas uu ilaahay wuxuu wala talbisu al-haqqa bil baatil wa taktumu al-haqqa wa antum ta'lamun qodobkaas asagana waa qodobka aan rabay intaas inaan ka sheego xalaqadan iyadana sideedaad